madaxweynaha maamulka Galmudug Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid oo gelinkii dambe maanta shir jiraad ku qabtay magaalada Cadaade ee xarunta Ximan iyo Xeeb ayaa si kulul uga hadlay heshiiskii ka dhacay magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland. madaxweynaha maamulka Galmudug ayaa sheegay in heshiiskaasi uusan faa'iido ugu jirin ummadda Soomaaliyeed wuxuuna gaar ahaan tilmaamay in faa'iido aysan ugu jirin dadka ku dhaqan gobolada Mudug iyo Galgaduud. marka la fiiriyo dhammaan qodobada uu ka kooban yahay iyo fikradaha tirada uu ka kooban yahay waxaan u arkaynaa guud ahaan inuusan waxba ka bedelayn waxba uga duwanayn heshiiskii ay horay u wada gaareen ra'iisul wasaarihii hore mudane Cabdiweli Axmed oo ra'iisul wasaarihii hore iyo mudane Cabdiweli Gaas ee hore u gaareen 14 Oktoobar sanadkii la soo dhaafay. mar haddii ay sidaa tahay haddee midda kale dee dadka ku dhaqan labadan gobol Mudug iyo Galgaduud sida uu sheegaya dastuurka qodobkiisa artikalka 46 faqradeeda koobaad waxaa iska leh ay ka talinta iyo go'aan qaadashada dadka ayaa leh mala aha Xasan Sheekh male mana la Cabdiweli Gaas male mana la nin kale oo la khayrkooda ayna male waxaa iska leh shacbiga Soomaaliyeed hadba inta iyadoo u aragta inay ayagu aayahooda isku tagaan sida daraadeed go'aankan waxaa qaatay maantana madasha ku dhan dadka ku dhaqan labadan gobol Mudug iyo Galgaduud. Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid madaxweynaha Galmudug oo sii wata hadalkiisa ayaa sheegay in looga baahan yahay madaxweynaha Soomaaliya in dhexdhexaad uu ka noqdo arrimaha Soomaaliya. waxaan rabaa galabtay markaan guud ahaan isku soo duuduubo heshiisyada maalin walba dadka mudane Xasan Sheekh Maxamuud heshiiska iyada uu galayo waa madaxweynihii dalka annaga waan u aqoonsana laakiin madaxweynuhu waxa madaxweyne ku yahay uma ahan inuu dad gaara dulmiyo uma ahan sharciguna ma siinayo inuu dad gaara u eexdana ma siinayo waxa madaxweynaha sharcu ay tahay xuquuqda uu leeyahay waa ilaaliyaha sharciga waxaan ka codsanaynaa mudane Xasan Sheekh Maxamuud inuu ilaaliyo sharciga ee uusan ilaalin beel gaara danaheed iyo shakhsi siyaasi danihiis inuusan ilaalin walaalkeen intaasaanu ka codsanaynaa. Cabdiweli Gaas waxaan ugu baaqayaa Cabdiweliyow waxa weeye wax yani in mudaaba walaalkayow gobolka Mudug waxaad ka dhex doonaysay waxaan walaalnimadii iyo wada deganaantoodii wax aan ahayn ayaa ka soo dhex galay Allah ka soo aruuriyaan leenahay waxa aad rabtidna waxa farahaaga tirada badanna waxa weeye waxa fiican in la isqadariyo walaalnimo iyo deegaan iyo wada derisnimo in la isku dhowro. Maxamed Maxamuud Aadan TV-ga caalamiga Universal Cadaado.